حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مركا وقارتو قب هجاكسن. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها قيارتي أصحابتان جعلها جنال كيغا واني وعيقلين كحيران ولا ليال سود وهذا لما ولا لها يعصبون سود ويني حد الله سود وهذا قام فرنك سود وهذا خيار أصحابي ما أنتوا حاربة إن شاء الله إلى إذن كسر إذن لو ذاقو قصة عن ملك سو أخري قصة سيتو آدياد وعجب بدن قصة سيتو ما ركتم 10 عبرة فربضان يكون جرتو إن شاء الله أهنا قصة واقعة حقيقة أو ربنا دوانها لعضي. قصة هورتا أولا كل شيء وحاكا شيكينيو نينك ما ركتا قصة قبصتي وحا أوليهي وحان أها نين هرقان لأ وحو يري ماشي عن هرقانك كلها وحا درس إلى أهيد إسلام تاس أو أدقيدو أو إنتي مالي مالمها كميدا وحو يري إسلامتي وإيتيميد وحين هورتا قصة وحي كدعضي ودنك سوريا كدعضي وحينا دعضي ما ركتا maaragta qisadu bilaabatay bilowgeedii 20 sano ka hor inta uusan Suuriya dagaalka ka dhicin ay qisadu bilaabatay. Ninka odaga wuxuu yiri meeshii aan ganacsiga ku lahaa ama harqaanka aan ku lahaaba waxa igu timid buu yiri islaanti markaas waxay igu tiri buu yiri hebelow gurigayga waxa yaala bay tiri makiinadaas uu odagaygu isticmaali jiray waxay tiri makiinadaas waxaan rabaa bay tiri inaan kuu keeno oo markaasna aad iga ijaaratid oo marka iga ijaaratidne aan ilmahayga iyo qoyskayga aan ku biilo lacagta ma aragtaa aan ka helo ijaarkaaga aan ka helo ijaarka makiinadan aad iga ijaaratid aan ka qaato wuxuu yiri waayahay ii keen waan ka xishooday buu yiri wuxuu sidoo kale markuu sasiir wuxuu yiri xishoodka qaarna wuxuu yiri ilaa khayr ma ahna wax kale kuma jiro way ii keentay buu yiri makiinadii laakiin waa macal asaf makiinad waxay ii keentay buu yiri aad qadiim u ah oo hadda waqtigan la joogo aan waxba ka anfacaynin aniga shaqadeyda laakiin wuxuu dhahay waxaan ka xishooday buu yiri ama ma aragtaa aan diiday buu yiri inaan qalbiga ka jibiyo waxaana dhahay buu yiri walaashayay makiinadan intee in leeg ayaa rabtaa inaan kaaga ijaarto waxay tiri waxaan rabaa inaad 3 leero iga ijaaratid baan rabaa bay tiri 3 ma aragtaa 3daas ka badan kaama siinay 3daas bas iga ijaaro ay tiri waana bishii yaa maalintii ma ahan bishii 3daas leero iga ijaaro ay tiri 3daas riyaal afwan 3 riyaal 3daas riyaal iga ijaaro bay tiri 3 riyaal baan rabaa qisadan waxay dhacdaa in 20 sano ka hor wuxuu yiri waayahay dhib malahan makiinada waan ka qaaday buu yiri meel baa iska dhigay buu yiri saadiisho sheegay makiinada qadiima oo mar hore aad waliba qadiim u abayd oo waxay maaragtaa macmalkayga ama shaqadeeda ka qabanaysa malahan bil walba wuxuu yiri $3 waxa 3 riyaal baan siiyaa buu yiri kadibna wuxuu yiri saas ay maaragtaa xaaladu iska ahayd buu yiri 10 sano ayaan sidaas ahayn buu yiri ayadana bil walba Jamiil baa la dhahaa wadaada makiinada iskale Jamiil 3 riyaal baan siiyaa buu yiri anigu walibana makiinadii sayidii soo sheegaba aan waxba ku isticmaalin wuxuu yiri 10 sano kadib meeshii aan deganeen baan wuxuu yiri oo meel yar isku cariir markaas ahayd ganacsiga Ilaahay baa noo barakeeyay wuxuu yiri meel meeshaas ka yara weyn waan damcay buu yiri inaan guurno markaan guureyna marka gabadha mudiiratul acmaalkii aheedo yaanihi qolyaha asaga marka u shaqeynay hoos imaanayay gabadhi ma aragtaa mudiirada ama maamulada u aheed baa waxaan ku iri buu yiri markaas soo alaabta soo rareysaan makiinadii Jamiilne soo qaada markaas waxay igu tiri buu yiri makiinada Jamiil waxba nooma qabatee mudiiro maxaan ku faleynaa markaas wuxuu yiri adigu hawshaadii shaqadaada ma ahane amarka aan ku dhahay fuliyo makiinada soo qaad makiinadii bay soo qaadeen way guureen haddana muddo kale adigu ku dhawaad 5 sano kaleentood bay sida ku jireen oo ma aragtaa ay wadaadina 3 riyaal qaadanaysay iyaguna aysan makiinadii ayagu waxba ku isticmaalin meesha iska taale markii dambe wuxuu yiri waxa dhacday buu yiri dagaal baa dhacay dagaal baa dhacay buu yiri dagaalkii baa dhacay buu yiri dagaalkii markuu dhacay baa waxa dhacday buu yiri horta wuxuu yiri Jamiil wuxuu yiri waatan Suuriya sida xun la isugu baabi'iyay wuxuu yiri taleefankeedii waan garaacnaa nagalama qabanayo meel kale u raadina waan garan weynay
maxay toole ciwaankii iyo gurigii de berigi aan dariska ahayn waan ka weynay oo de meel walba qax iyo waxa ka dhacay iyo maaragta xaalado dagaal oo aad garan kartiin in Suuriya wax ka taagnaa wuxuu yiri sidii baan iska ahayn buu yiri gabadhi aniga wuxuu yiri horta aniga meeshiidii buu yiri meelihii ku dhadhawaayo dhan iyo goobihii ganacsiga ku dhadhawaayo dhan wuxuu yiri digaday noqdeen oo dhibaato gaartay oo burburkii iyo maaragta iyo balaayadii la sila dhacay ba saameeyay buu yiri laakiin anigu meeshiidii wuxuu yiri intaas in la eg oo dhibaato ah ma soo gaarin buu yiri waa arrin dadka dhan ay ka yaabeen haddaba wuxuu yiri sidii baan ilaahay nimcadiisa isaga qabay sidii baan isaga shaqaysanay sidii buu ganacsigii igu socday sidii bay mehradeedu maaragta ama goobteedii ganacsi aysan wax dhibaato u soo gaarin oo dadka kale maaragta iga agla dhawaay goobaha ganacsiga ay ku yaalo dhan ay u burbureen oo dadku ay dib u dhisteen xaaladii xogaa way yara degtay gabadha aniga mudiiratul acmaalka ay ahayd buu yiri oo maaragta shaqaalihayga madaxdu ahayd wuxuu yiri way baxday oo way dhooftay oo Yurub ay aaday buu yiri wuxuu yiri 2 bilood kadib bay gabadhii soo wacday buu yiri markaas waxay ugu tiri buu yiri yaa muallimow waxaan rabaabay tiri arrin ama riyo aan arkay baan rabaabay tiri inaan kula wadaago riyadaasna waxaan jeclaystay bay tiri intaan dad kale u sheegi lahaa inta dad kale ka maqli lahayd in aniga afkayga ka maqashid waayahay buu yiri riyadu maxay tahay waxay dhahday waxba ii yimid bay tiri anoo riyadii ama hanu hurdoba wax ii yimaadeen markaas waxay ugu dhaheen bay tiri wixii waxaad ku tiraahdaa fulaan waa ninkan moogta meherada iska leh waxaad ku tiraahdaa hebel maxay toole makiinadaas Jamiil daraadeed baa waxaan kuugu ilaalinay macmalkaagii baa waxaa macmalkaagii maaragta ama goobtaadii ganacsi inay dhibaato soo gaarin oo dadka kalena ay dhibaato soo gaarto waxaa sababay bay dhaheen makiinadii Jamiil ee aad gabadha maaragta armasha ama maaragta garoobka aad ka qaaday 3 riyaal siin jirtay ee ilmaheedana maxay heetoole aan iyo qoyskeedu ku biilan jirtay adan waliba waxa ku isticmaaleen makiinadaas daraadeed baa meeshaadii lagu badbaadiyay wixii ii yimid saas ay ugu dhaheen markaas wuxuu yiri ninkii wuxuu yiri xaadiidii baa istaagtay wuxuu yiri ilma iga soo qubatay buu yiri ilaahay baan u mahad celiyay buu yiri alxamdulillah aan dhahay buu yiri ilaahaygi i waafajiyay maalinta noocaasa inaan wadaadaas maskiinta qalbigeeda iyo ubadkeeda aan farxad geliyo anoo walibana wax faa'iido ku qabin oo walibana meel yar oo iska basiida iska heesto ilaahaygi i waafajiyay baan u mahad celinayaa buu yiri wuxuuna yiri ilaa yoomina hada oo Suuriya dhibaato walba ka dhacday buu yiri meeshaydii baan joogaa inay meeshaydii bulaasho mooyaane balaaye imay arag buu yiri xataa cirbad duleelkeedna allaha ka dhigee wax la eg wuxuu yiri anigu meeshaydii dhibaato ah ma soo gaarin buu yiri qisada wuxuu ku soo gabagabay waxay tahay macruuf inaa sameeysid waxay ka ilaalinaysaa buu yiri masiibooyin ku imaan lahaa ama masiibooyin maaragta ku soo weerari lahaa ya salaam waxaan rajeynaa qisadaas inay tahay qiso aad iyo aad u faa'iido badan inay tahay qiso cibriya 10 ku jiro inay tahay qiso ku tusayso dadka kale walaalahaaga ay dhibaataysan hadii aad qulubtooda iyo qalbidooda aad farxad gelisid adoo waliba heli karin laakiin intii aad heli kartid oo maaragta awoodaadu la egta aad ku farxad gelisid waxaan hubaa inay qisadaasu ay 10 u tahay cid walbo oo ma aragta maxay toole dadka walaalahooda inay wanaag haba yaraatay ku taraan aanan jecleen wanaaga aad qof walaalka u tiraysid waxaad ogaataa inuu adiga kugu soo laabanayo adiga ma dareensanid markaas laakiin sida qisadan ka muuqato kale ayaa waxa dhici doonto in shii yoom ama maalin maalmaha kamida inuu ilaahay masiibo kugu soo socday kaaga badbaadiyo akhyaar asxaabi waarjina qisasina wax ka fahanteen waarjina in qisada siiti maaragta u qalantay in dadka kale asxaaba kale la wadaago waan rajina insha Allah ila idinkiisina ku dadaali doono inta awoodana la egtahay in dadka kale walaalaheena aan wax tarno qalbiyadooda aan farxad gelino walow adiga waxba ka faa'iidin hadaa doontida laakiin ogow خير يا ماركتا وناك اسميسد مره بمقاساريس في الدنيا وما في الاخره لبدا مدن اي الهي ماركتا نتيجتك ku tusdoona insha Allah ilaahay idinkiis waa maasantiin khiyaar waxa ku maasantiin daawashadiina sida qurux badan ay la socotaan insha Allah fiidiyoga xigeentan ku kulmeenan waxa idinkaga tagayaa waxay tahay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh